waxaa soo afjaray oo halkaasi hadal ka jeediyay kusimaha taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax isagoona hambalyo u diray dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed 74 sano guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed 20 December 2017 aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska iyo kaygaba waxaan hambalyo u dirayaa sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda iyo awlaadi ay abayaasha ku geeriyoodeen ayagoo qaran ku shaqeynaya ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo isugu jira ciidanka booliiska federaalka iyo ciidanka booliiska dawlad goboleedyada dhammaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed 74 guurada waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo horumar iyo barwaaqo ku gaara waxaan u rajaynayaa inta ku dhaawacantayna caafimaad intii dhimatayna waxaan u rajaynayaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo guul iyo horumar iyo nabad maanta mid aan joogno ka wanaagsan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaantiisa aan u rajaynayaa booliiska Soomaaliya ayaa soo maray burbur xooggan ayaa hadda ku jira xaalad soo kabashaha iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaalo dheeraad ah ku bixinaysa xoojinta iyo qalbeynta ciidamada booliiska Maxamed Nuur